طبعا qaraxan qaraxyada kaleeto oo sida joogtada ah ay magaalada ugu weerari jireen waxa uga duwan yahay in ay bartilmaameedsadeen madaxii booliiska magaalada ama caasimadda muqdisho oo ah hawl sida caadiga ahayd ka abaabulan oo ay ku fadhiso in ay hayaan warbixin aada u daqiiq ah oo socodkiisa iyo maaragtay dhaqdhaqaaqiisa ay aada ula socdaan. arrintaas ayaa laga dheehan karaa. waxaa kaleeto waayadanba ay aada runtii inkastoo weeraradii waaweynaa ay yaraadeen, waxaa moodaa tayada weeraradooda in ay ka fiicnaanayaan ama ay ka bartilmaameed weyn yihiin kuwii horeeto oo ay sida caadiga ah meelo dad badan kala duwan ay joogaan ay ku weerari jireen oo ay madaxdii amniga gaar ahaan ay hadda khatar ku wada jiraan ama qaarkoodba ay laayeenba. waya dabcan qaraxyadu way ka dhici jireen sidaa sheegtay muqdisho. qaraxana qaraxyada ayuu dhinac markaad eegto uu la mid yahay. waxaase moodaa in muddooyin ku dambeeyey xuseen ay yaraadeen weeraradii loo adeegsan jiray gawaarida walxaha qarxa laga soo buuxiyey. ma waxaan dhihi karnaa dadaal iyo isbeddel ay sameeyeen laamaha amniga ayaa arrintaa ku timid, mise culayse kaloo shabaab haysta ayaa jira? dabcan waa jiraan waxyaabo oy dowladda iyo dowladaha taageeraba ay shabaab ay ka maaragtay uga hortageen qaabkii ay sida joogtada ah magaalada ay usoo weerari jireen. dabcan sanadihii lasoo dhaafay xoog waxaa u socon jiray weeraro xagga cirka ah oo gaabiyey isku socodkoodii inay baabuur magaalada usoo daabulaan. waxaa xigtay oo waqtigaasna isla markaasna la qabtay buundooyinkii jannaale ilaa afgooyo isku xiraayay oo ahayd marinka ugu weyn oo ay soo marsiiyaan baabuurtaas. marka labadaas arrimood oo qabsoomay darteed ayaa ay baabuurtii waaweyneed, inkastoo qarax uusan joogsan, baabuurtii waaweyneed ay aada u yaraatay. laakiin haddana mar walba oo meel laga xiro waxay isku dayaan in ay tabti iyo jidadkii ay u mari jireen ay wax ka bedelaan. midaas ayaa maanta ay tusaale tahay in aanan marna la joojin karin. arrinta waxaad soo hadal qaaday qaraxii muqdisho maanta ka dhacay inay shabaabku haysteen xog ku saabsan dhaqdhaqaaqa taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka banaadir. dabcan deegaanka taliyaha ayaa dadka qaar sheegay inuu ka ag dhow yahay goobta qarax uu ka dhacay. sidaa daraaddeed ma dhihi karno shabaab uma baahna inay waqti badan geliyaan siday u helaan xog intaa ka ballaaran, maadaama ay ogaan karaan dhaqdhaqaaqyada iyo guriga taliyaha iyo waqtiyada uu soo baxo intaba. haddii saas uma fududa. dabcan qofka amni ka shaqeeya haddii uu taliyo amni oo fahan amnina leeyahay, dadka la shaqeeyana ay faham amni leeyihiin, in socodkiisa laga sii warqabi karo. arrintaasu dee isagay ku noqonaysaa haddiiba ay dhacayso in dee saas ay u sahlan tahay. laakiin tan waxay u eg tahay in ay arrin daqiiq ah, maadaama socdaalku wuxuu u baahan yahay waqti gaar ah. baabuur intii qarax laga buuxiyo saacado meel ma ooli karo, xataa daqiiqado meel uma ooli karo isagoo gaadaya qof saas u muhiim ah. marka waa arrin coordinated oo ama xaggii dabac xaggiisa iyo maaragtay farsamo xumo xaggiisa ka timid, ama ay noqonayso inay iyagu aada maaragtay sirdoon aada u sarreeya ay ku dhex leeyihiin booliiska magaalada. waay waxaad ogtahay in doorashooyinkii dalka ay dhici doonaanoo deegaanadii maamul goboleedyada iyo caasimadiiba ay ka dhici doonaan golayaashii doorashooyinkooda dhawaana la filay inay bilowdaan. intay leegtaa is leedahay khatarta ay shabaab gelin karaan doorashooyinka? wallaahi hadda habaca muuqda aniga wuxuu walwal xoogan ayuu maaragtay gelinayaa oo sida diyaargarowga doorashada
gaar ahaan xagga amniga waxaa igala muuqda habac xooggan oo ka yara liita sidii waayadii hore loo maaragtay maareyn jiray waayadii hore oo weliba dee dowladdu intaan ka tabar badnayd dowladdii oo hadda daciiftay siyaasiyiintii oo aada isu khilaafsan iyo diyaar garowga xagga amniga oo aanan u jeedin in yacni qaab xataa maaragtay wadatashi rasmi ah laga gelinayo arrinta amniga marka arrintaas aniga walwal xooggan ay muuqda dabcan waa maalin walbad waa aragtaa in lasoo diro cabsiyo iyo handadaado ka imaanaya xaggooda marka arrintaas de waxay u baahan tahay dhowr jeerna de dowladdana waa kula talinay dadka taageerana waa kula talinay in arrinta amniga aan la dhayaalsanin oo si aysan dhabarka uga jabin isbedelka hadda la filayo inuu dalka ka dhaco iyo doorashadan maaragtay xilliga dheer soo jiitamaysay way waxaad ogtahay puntland in ay xukun dila ku fulisay tobaneeye ka tirsan sida ay sheegeen al-shabaab oo dilal ka geystay deegaano ka mida magaalooyinka puntland qaarkood ayaa hadda xukun sugayaal ah oo iyana ay socotaa dhegeysiga dacwadooda sideed u aragtaa tillaabada puntland ay qaaday maxayse shabaab uga dhigantahay horta marka koowaad de shabaab arrintan oo ragga iyaga ka tirsan ama lagu eedeeyo la tooganayo runtii waa xanuunada ugu badan oo loo geystay ka mid tahay waa ka warhayaa gudahooda sida ay aada arrintaas u dhibto taas waa midda labaad xagga puntland iyo cadaaladda la mariyo iyo dee maaragtay ogaal badan kama lihi sida cadaaladda xagga ka jirta ay maaragtay u hufan tahay oo loo mariyo dad badan oo qiraala waa jiraan oo maaragtay meelaha maaragtay lasoo gelgeliyey laakiin macluumaad la-aan ayaan ahay laakiin haddii la yidhaahdo in yacni dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada cadaaladoodu waa inay si isugu xirnaadaan kalsoonida maaragtay lagu qabo cadaaladda dalka mar walba way hooseysaa laakiin waxaa fiicnaan lahayd inay iska warqabaan uun ay dadku ogaadaan oo hadda dacwo ka yeeraysa iyo dad maaragtay u mudaaharaadaya ayaan maqlayay oo lahaa waxaan ku kalsoonnahay dowladda dhexe marka maxkamadaha oo gobolada iyo maxkamadda federaalka inay si uun u coordinate gareeyaan inay howlahan inay iyagu ka wada warqabaan oo laisla socdo in dadka lagu qalbi maaragtay qaboojiyo way fiicnaan lahayd dhinaca iyo galmudug waad ogtahayoo bacadweyn oo shabaab ay mar qabsadeen haddana dib ayaa looga saaray wisil weerar ayay ku qaadeen iyana waad la socotaa oo mudug ka tirsan markaad eegto galmudug meelo badan oo ka mid a gacanta shabaab kuma jiraan inkastoo deegaanada qaar ay weli shabaabku maamulaan miyay kuu muuqataa walwal ku aadan in shabaab ay suuragal tahay inay ay saameyntooda deegaanada galmudug ay ballaariyaan sideese arrintaasi wax looga qaban karayaa isleeda wallahi dee runtii de waa ka warhaysaa galmudug dabcan qeybta bari oo dhan mar walba shabaab haysan jiray qeybtan galbeed oo laamiga soo jirtana waa ka madax banaanayd iyadoo dowlad aysan xataa jirin dowladda galmudug markii la dhisay ilaa haddana nasiib daro 6 sano ka badan wax horumar ah oo ay xagga dowladnimada iyo amniga ay soo kordhisay deegaankaas oo la taaban karo ma jirto arrimo siyaasadeed oo ayaan darro ayaa badanaa waqtiga ka lumiyey arrintan oo shabaab hadda isballaarintaana waxay tahay in ay meeshii dowladnimadu haddaysan ku faafin waxay fursad siinaysaa shabaab in ay qabaa'ilkii marka hore ka nabdoonaa oo iyaga iska difaaci jiray inay u nuglaadaan oo bacaadweyn aad hadda moodo reerkii halkaas deganaa oo si gaara isaga difaaci jiray hadda inuu u nuglaaday oo isdhiibay reeraha kusii xigana sidoo kale ay u nuglaanayaan haddii aanan laga soo gaarin oo dowladnimada dhuusamareeb laga dhisayo dowladnimo hufan oo sax ah oo amni iyo maaragtay iyo siyaasadba ka midaysan haddaysan noqon
runtii front line kaleeto ilaa puntland laga gaaro shabaab saasay ugu durki doonaan haddaanan hadda yacni bacaadweyn iyo wisil iyo aanan lagu joojin. aad buu mahadsanyahay wuxuu xuseen macalin maxamuud madaxa macadka daraasaadka amniga ee Hiraal oo qadka toos ugu warramiyay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.